بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى وحين صعود محاضراتك مؤتمر كيني وصلوا وحين مرينا محاضرة أفراد مانتا ومالنتي لباد وتاريخه 19 أبريل تهاي 2019 محاضرة ciwaankeedu waxa weeyaan xiriirka wiilasha iyo gabdhaha maxaa banaan maxaa si reeban waxa insha Allah taala inoo martiya oo mawduuca inooga hadli doona si faahfaahsan sheekheena Sheekh Yuusuf Ahmed falyatafadal mashkuuran. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. توفيق إلهنا وافجيه سبحانه وتعالى خيرك إلهي نقوهن جل وعلا. محاضرة عوان كذا حريرك ويلاشا يقبلها دائرتا محا حلالة محا حرامة ولا أفسو ماليي وانا ارغا مارتي ان لغو سميو تهذيب iyo hanaan wanaagsan bal isku dayay, laakiin xaqada muxaadarada ciwaankeedu waa shukaansiga iyo ahkaamtiis. soo sax ma xaqada loo jeedaahi ashukaansan lahu ahkaam wa aadaab. shukaansigu wuxuu leeyahay aadaab iyo akhlaaq buu leeyahay. haweenka doonitaankiisu aadaab iyo akhlaaq sharciga ay leedahay. إلهي سبحانه وتعالى فضليسا وحا كمدا إيا نحريستيسا جل وعلا إنو إنسان كمركو أبوري وحا الله وحا أباهي هاي إله سبحانه وتعالى إنو أجدي وحيالها نلو أجدي إن لكو أبوري وحويا لبدا جنسي إنا إسباهيهم رقا إيا دمرك بن آدم كنا أو سنشيري كرينين haddii maartay laba jinsi aysan jireen adduunka dhamaantiis waa Ilaahay ka dhigay zawjayn. koonka waxay joogo dhamaantiis khaaliqeena Ilaahay wixii ka soo haray waa lamaanan yihiin. korontadu waa lamaananta, geeduhu waa lamaanan yihiin, insaanku waa lamaanan yahay. wax kasta dhadig iyo laba laga dhigaa ama plus iyo minus weeyaan. warka Ilaahay jalla wa ala sunanta uu doonay ayaan rabnaa wax yar inaan ka tilmaano wadadaas loo qaadayo khaaliqii abuuray insaanka sida uu talagalay subhanahu wa ta'ala. asaga inooga aqoon badan maslaxadeena. ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir. ilaahi insaanka abuuray soo garan ma yasagu subhanahu wa ta'ala. khaaliqaasi wado inoo jideeyay basharkuna wadada alla ugu talagalay intay hayaan waa liibaanayaan. laakiin maalintay ka bayraan ama wadada ay ka baxaan ama si Ilaahay ugu talagalay ay u dhaqmi waayaan waa maalintaasi bini aadamku dhibka iyo khasaarada cudurrada mashaakilka marka ay soo gaarayso weeyaan. wa illa hadisi Allah ugu talagalay loo dhaqmi lahay law ansafa an-nasu lastaraha al-qadi. dadku haday cadaalad toos lahaayeen qaaliba looma baahnaadeen markaan ku soo dhawaado muxaadaradaani markaan aan fiirfiiriyay yaraha aan oo dorasay waxaan ku qiyaasay ilaa 10 muxaadaradood inay ka badan u baahan tahay mawduuca. markaan si gunaanaday eerayada soo koob aan isirina waxa weeyaan aad bay ugu adkaatay. iminka garan maayo xagee ka bilaabaa xagee baan ku dhameeyaa. laakiin waxa la yiraahdaa ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. wixii aad gaari weys intaad ka gaari karto on baa laga qabtaa. eraya kooban baan ku soo koobayaa. eraga waqtigu aad buu yar yahay. erayadaas kooban waxaan leeyahay kow guurku sidiisa waa sunnadii nabiyaasha waa wadadii islaamka. shaaricu idaa sadda shaaricu baaban fataha baaban bal fataha abwaaba. islaamku hadduu maaragtay wada xiro ee insaanka maaragtay wada ka celiyo wadooyin buu u bedelo u sameeyaa. haddii zinada la diiday, haddii aan shaxnimo xumada la diiday, haddii wadooyinka qaldan la diiday
ilaah wuxuu furay baabka ah ina maartay la isguursado guurka ilaahay jideeyay guurka ha jideeyay ilaah subhanahu wa ta'ala wuxuu ka ratibay ajir wa fi bud'i ahadikum sadaqa nabigu alayhi salatu wassalam arurta ka dhasha iyo khayraad ka dambeeyana waa waqaf joogta ah cibaado ay sameeyaan iyo acmaasha ay sameeyaan ilaah inta adoo ku qoraya arurtada subhanahu wa ta'ala aad barbaarisay marka dhimatay ka bacdi marka fadliga misalan aad bay guurku fadligiisu u badan yahay waa sunnadii nabiyaash waxa weey waa wadadii maarta rasuulka naga alayhi salatu wassalam waxa lagu ilaaliyaa waqtiga waxa lagu ilaaliyaa xoolaha waxa lagu ilaaliyaa anshaxa waxa lagu ilaaliyaa dumarka waxa lagu ilaaliyaa wiilash waxa lagu ilaaliyaa diinta ayaa lagu ilaaliyaa oo rasuulka naga alayhi salatu wassalam wuxuu yiri ila tazawwaj al-abd faqad istakmala nisfa diini qofka hadduu guursado diintiisa barkeeda waa dhamaystirtay haaf iyo barba ayaa maartay u damaanay ama u xifdisan inta kale Allah uga baqo subhanahu wa ta'ala sidoo kale guurku nabigeenu aad buu ugu boorin jiray alayhi salatu wassalam jeelkii uu barbaariyay nabigeenu daayarta jirtay asagoo la hadlaya muslimiintana si guudan ula hadlaya nabigu yiri ya ma'shar ash-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء نبينا عليه الصلاة والسلام داير تصغى الله الله أوري وردايري وروي داير هل قورسو نبينا عليه الصلاة والسلام عدي أودي كريس إنay guursato ha guursato jir ahaan qofku marka uu diyaar ugu noqdo xoolo ahaan diyaar ugu noqdo insaanku uu doonayo ha guursato rasuulku alayhi salatu wasalaam falyatazawwaj wa amarka nabigeena alayhi salatu wasalaam asalku waa waajib weeyaan guurku waxa noqdaa ahkaamta islaamka shanta ah ayaa maaratay ku socota mar waajib uu noqdaa mar waxa weeyaan sunna uu noqdaa mar waxa weeyaan mubaax uu noqdaa mar karaahiyo uu noqdaa marna xaraam buu noqdaa marka ahkaam tajri alayha al-ahkam al-khams shanta ahkaamta la yaqaano ayaa ku socota shariicada islaamka marka mas'alada guurka maaratay hadda ka hadli maayo laakiin nabigeena alayhi salatu wasalaam amarka uu bixiyo marba waajib noqonaya waa markii maaratay qofku arinta u baahan yahay awoodiina waa heli karaya waana u baahan yahay marka inuu guursado ayaa maaratay ayaa noqonaysa shariicadu dhinaca kale say guurka ugu tartarsiido dadka oo ugu boorisiido oo ma garanaysa ay dadka u jeclaysiido ayaa albaabka kale cuquubad weyn baa loo sameeyay zinada meel weyn baa la istaajiyay waxa laga ratibo ka dhalanaya ciqaab aad iyo aad u weyn adduunyo aakhiraba dulli weyn baa ka dhalanaya saadarteeda shariicadu ayay maaratay arda ka hortagtay guurka in la fudeeyo daraadeeda ayaa shariicadu waxay ku boorisay inaan meherka la adkayn inaan shuruudaha la adkayn aan markaasi guurka looga baahnayn wadalika ayaa rasuulka naga alayhi salatu wasalaam oo yiri waxa guur ugu baraka badan midka ugu meherka yar nabigeena alayhi salatu wasalaam nimbo waxa weeyaa khaatam faraati oo dahab akhaat oo bir ah ayuu nabigu ku yiri alayhi salatu soo doon buu ku yiri ma garanaysaa walaw khaataman min xadiiska macruufka ah ayuu rasuulku alayhi salatu wasalaam su'aashu hadii guurku uu noocaas yahay ee wanaagaasi qaybo kamid aan tilmaanay أو ليه هي أمة أبديو تزوجوا الودود الولود فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة نبي عليه الصلاة والسلام دمر كمارتي ترمية وحدلية مارتي رقد جعل وناق بدن صالحات كجورسة ونبي عليه الصلاة والسلام وبدك فرح بدن بندونيناه إن أمة حوق للنقناء قيامة أمة كلا يكون فانو تطبضنا النقطين أيانو دونينا بمارت نبي عليه الصلاة والسلام umaduhu adduunka maanta dhulka dushiisa loo kala badan yahay ayaa loo kala power weyn yahay si loo kala badan yahay baa loo kala xoog weyn yahay marka nabi waqti hore maama alayhi salatu wasalaam marka guurka hadaan guursanayno daayartu waxa su'aal ay weydiinayaan waalidka dhalana laga baahan yahay inay ogaadaan ayna ku tarbiyeeyaan ragga dadka guurdoonkana maaratay daayartan ay ogaadaan in la weydiiyo wadada u qaadi lahaayeen guurka markay guursanayaan mislaas waa mas'ala u baahan inay ogaadaan muslimiintu waalidku waa inay ogaadaa hooyada aabbaha daayartu waa inay og yihiin maxaad xaq u leedahay maxaadan xaq u lahayn maxaa shariicadu ku siiday wadada baa guurka u doonaysaa seed baa wax u shukaansanaysaa xagee baa wax u qaadaysaa waa inaad maaratay muslim baa tahay ka qaado kitaabka ilaahay iyo sunnada nabigeena calayhi salaatu wasalaam laakiin waxaan ku soo gunaanada ku soo koobaya dhowr arrimood
ayaan tilmaamayaa oo maadaama waqtigu ugu yar yahay ayaan ku soo koobi doonaa. waa kow markaan rabo waxaa lagaa rabaa inaad maaragtay waxa la yidhaahdo gabadha aad doonaysid inaad guursatid inaad marka hore qaadid waxa wadada aad maaragtay ku arki lahayd aad ku ogaan lahayd inaad maaragtay u qaadid. dhowr wadaa dhici karaya gabadha qurxoon wanaagsan akhlaaqda hooyadaaba ku soo ogaan kartay samaat fadhi la fadhiyay hooyadu gabar haday ka hesho maanday maaragtay miyaad doonan tahay maya ma lagu soo doonay waa maya guur ma doonaysaa inankeeda ay dhashay ama wiilka ay dhashay ay ku tiraado waxaan kuula talinaa gabadhaasi niyo waxa weeyaan waa gabar kugu habboon soo sax ma wax fiican weeyaan cagsigu inuu dhaco oo maaragtay gabadha ninka dhalay nin wanaagsan oo soo baaray oo ogaaday ilaana weliga waxaa loogu talagalay gabadha in laga soo baaro maartay ayaa loogu talagalay had iyo jeer dumarka marka la shukaansado dadka shukaansada ay caadifay ku abuuri karayaan foreign hate malaha yani waxa la yiraahdo caadifatu shahwa sideeda waa in dhatirtaa dadka qofku wax ma arko maartay marka sheega jecesh xubbuka shay yu'mi wa yusim shay marka jeclaato waa ku ndatira waana ku dhagatirayaa maartay soo sax maaha jacaylina kugu darmana waa dhici karaysaa aad maaragtay wax kale ba arki weydo soo sax maaha qad shaghafaha hubba inna lanaraha fi dalalin mubin inay noqotona waa dhici karaysaa maartay marka qofku miisaankii oo wax kullu miisaami lahay inuu kalluma dhici karaysa waliba da'yarta iyo dumarka iyo maaragtay marka la shukaamiyo wiilku maaragtay xagga uga keeno waxaan reality na been oo maaragtay u soo aruuriyo waxa dhici karaya inuu maaragtay laga saadcaleeyo ama la siro ama xaqa aan loo sheegin. Soomaalida horena waa ku dheereeyeen oo da'yartoodu waxay dhihi jireen been maaragtay been ku soo xiragali runa ku dhaqbay dhihi jireen maaragtay been baa iyo maaragtay turfatoornimo si loo kala aftahansan yahay si wax loo kala xardhi og yahay beenta si loo kala sheegtaan badan yahay arrintaas oo dadkan foreign ahayn kala hayn aan maaragtay aqoonta lahayn waliba caadifo shahwad ay ku jirto ma dareemi karayaan wadada saxda ah. walidaalika waxaa loogu talagalay in lagu kabo dhinaca kale in lagu kabo waaridka gabadha in lagu kabo ay la tashado waaridka ay la tashado laana waaridku waxa weeyaan aqli buu ka hadlayaa markaas deganaansho ayuu ka hadlayaa ayadana waxaa dhici kara shahwa xageed wiilashana nooc kale marka gabadha walaayada waliga waxaa loogu talagalay inuu ayada subood gareeyo maslaxadeeda uu kala hadlo qofkaana munaasib ma u yahay maaragtay maxaa ka iman karaya laakiin waligu inuu caqabad noqdo mushkilad noqdo ma aha looguma talagelin. marka koow wadooyinka loo qaadi karayaahi markay noocaas ay noqoto gabadhii maaragtay inuu arko wiilkiiba shariicada islaamku ay u ogolaatay quraanka daahirkiisa ka muuqanaysa walaw a'jabaka husnuhunna nabiga lagu yiri calayhi salaatu wasalaam haday haba ku caajab geliyeen quruxdooda inay gabar qurxoon tahay see ku ogaan karaysaa in aragto Soomaa khayru khalqillahi baa lagu yiri calayhi salaatu wasalaam walaw a'jabaka husnuhun macnaheedu waxa ka muuqata hadaa inta ishaadu ku dhacdo aragtid gabar aad doonayso ku caajab gelido marka nabiga laga xiray weeyaan tirada go'an looga xiray hadii ay noocaan noqotay nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu u ogolaaday qofka guurdoonka ah oo daacada ah gabadhu doonayo inuu maaragtay iska eego inuu iska fiiriyo loo ogolaaday oo rasuulka naga calayhi salaatu wasalaam wiil baa gabar guursaday reer ansaar ah markaasuu nabiga u sheegay ku yiri calayhi salaatu wasalaam haween reer ansaar aan soo ayaan guursaday markaasuu rasuulku yiri markaas loo mehriyay ayo magaranaysa loo mehriyay markaasuu rasuulku wuxuu ku yiri oo miyaad iska eegtay buu ku yiri miyaad iska fiirisay buu ku yiri markaasuu ku yiri maya ilaahay rasuulkiisa ma ana arkin buu ma garanaysaa rasuulku wuxuu ku yiri calayhi salaatu wasalaam iska soo fiiri iska eeg iska damo ansaar xoogaa indhahooda waxba ku jira uu rasuulku yiri calayhi salaatu wasalaam yani xoogaa indhu waa leexsan yihiin sida Chinese oo kale maart qaarkood baa indha yaryar noocaas oo kale ku jira muxuu nabigu noocan u leeyahay calayhi salaatu wasalaam waxa dhici karaya qofku waxa la doonayaa guurku waaro ayaa la doonayaa laakiin haweentii aadan arkinin lagu soo dhoobay ama lagaga sheekeeyay laysat almuaayanatu kalmukhabara shay aad aragtay shay lagu sheegay lamid maaha waxa dhici karaya bari inuu laynku kugu qarxo aad ogaato qofka doonaysay noqon weys shariicadu marka waxay banaysay in dumar islaan ajnabi ah aad fiirisid lama ogola asalku laakiin misalan waa la jabiyay waxa la jabiyay wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim
waxaa la jebiyey waqul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihin waa laga soo reebay soo maa waxa weeyaan raggu waa indhaha ka laabteen dumarka ajnabiga ah la yidhi laakiin waxaa laga soo reebayaa haweentaad dan ka leedahay inaad guursato aad doonaysid ayaa shareecadu waxay ku ogolaatay inaad aragtid bay ku ogolaatay maarta waxa dusha sare laga arki karayo nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam ayadaa maartay ku habboon inay guurku sii jireen iska fiiriyo buu rasuulku yiri calayhi salaatu wasalaam marka waa la ogolaaday okay laakiin asalka mamnuuc bay ahayd maxaa yeelay arkitaanka waxay ahayd muharramun lighayri shay kala loo xarimo zinada looga baqayay laakiin maanta waxa weeyaan waxa loo socdaa wadadii guurka xalaasha loo socdaa maadaama wadadii guurka xalaasha loo socdo waxa loo baneeyay xaaje daraadeed baa shaygii loo ogolaaday in maartay baahida jirta daraadeed laakiin ma suurtagal miya mar haddaan arko oo ku qanco gabadha ee cajab geliso ama gabadhu wiilkay aragto ay ku qanacdo oo cajab geliyo waxa weeyaan imisa jeer baan markaas arki karaya maalin walba haddaan soo dhag iraad maalin walba fiirsado ka waran maart waxa sax ah la ogol yahay miya imisa jeer waxa la ogol yahay alxaajatu tuqaddaru biqadariha halkaas kugu filan arageeda hal mar hadaad ogaatid oo ku qanacdid dib dambe maartay inaad u aragto ma qabtid waa ajnabi waliinkaat marka haday ajnabi ka tahay markaasi gabar ajnabi ah lamid ma salaami karays waxa weeyaan telefoon saacada dheer kulama sheeka karays waxa weeyaan ma beer la xawsan karays abba iyo abo ma jireys sax ma waa mamnuuc weeyaan waa gabar ajnabi ah sheekada ma sii dheeran karays haddii mar aad aragtay ay aad ku qanacday chat maanta netka iyo saacadaha dheer kulama sheekaysan karays soo sax maahan waxyaalahaas dhammaanteed mamnuuc weeyaan waxaana ka dhalanaya haddaan la joojinin maanta duruufta aan aragno ma garanaysaa maxaa gabar maaragtay laysu kala daadiyey ee magarays la soo jiiday ee maaragtay masiibo weyn ay ka dhacday marta inay uur qaaday inuu jinni qaaday iyo wiilkii laftigiisa markuu arka gabadhaani maaragtay inaysan adkayn dhinacaas maxaa looga booday gabar looga booday marta oo la yiri ma khalaas tan waa boolo marta waa iska fududahay ma isku ma huba la leeyahay ayada marka waa inay gabar maartay dhowrsan inay tahay waa inay meesha ka muuqanaysaa waa inay gaab waxaan xarig u leeyahay shariicada islaamka waa gabar ajnabi ah weeyaan la mid noqonaysaa maxaa sameynaysaa marka lagaaga doonaya waxa laga doonayaa inaad khidaabo samaysid talaabada labaad qaadaysid waaridkeed baa u tagaysaa soo sax maaha gabadhan waa inaad doontid weeyaan soomabtaanka waxaan iraahdaa doonitaanka marka qarkood qasab ma ahan doonitaanku inuu guur u dhaco qasab ma aha laakiin inaad waaridkeed u sheegtid inaad ogaadaan maartay dadkii qaraabadeeda ahay gabadhan inaad danaynaysid inaad doonaysid inaad guursato inaad magaranaysaa dad ku yaqaan ku raacaan inaad wadadaas qaadid ayaa marka la doonaya marka khidaaba la yiraahdo ahkaam baa shariicada islaamku u sameysay doonitaanka shuruud bay leedahay marka gabadhan leenahay arag gabadhan inuu kuleenahay maarta waa doono kartaa waa inay shuruud bay leedahay shardiga koowaad gabadhan waa inaysan maxaarimtaada kamid ahayn yaani waa cidaadan geyn waa inaysan noqon maxaarimnimadu waxay ka timaadaa saddex jihaba waa ka timaadaa xagga nasabka waa ka timaadaa oo qofkii intii quraanka Ilaahay ku sheegay xurrimad calaykum ummahaatu wa banaatu wa akhwaatu inay tahay waxa weeyaan waa inaad qof maarta aad geyn karto waa inaad tahay guursan karaysid waxay kaloo ka timaadaa almusaahara xagga maarta xididkana way ka timaadaa waxay kaloo ka timaadaa ridaacada xagga nuugmadana way ka timaadaa marka qaarkood ogolaansho la'aanta inaad gabadhan guursato laba arrimood waa dhici karaysa inay taabiid tahay iyo inay magaranaysa muaqqat tahay oo waqti gaar ay ku xiran tahay dhici karaysa groupka hadda jeer dadku groupka maartay abadan aadan guursan karin waa caan weeyaan waa la yaqaanaa kuwaas marka ma shukaansan kartid ma dooni kartid waxa shariicada islaamku waa xaraan weeyaan kooxda oo maarta waqtiga ku xiran ayagu waxa weeyaan waa noocyaal weeyaan mudday ku xiran yihiin waxa kamida xaaskaaga walaashiis hadaad mid leedahay inaad labaydo aad doonaysid xaaskaaga walaashiis laguma ogola maarta inaad shukaansato sababtoo ah tan baa ku xiran tahay laakiin haday tan furtid tan waa guursan karaysaa ama tii ilaahay u timaado dhibato walaasheed waad guursan karaysaa tan laakiin ka xirtay link walaasheed baa ka xirtay ayada marka waa way waqti bay ku xirantahay waxa kaloo lamida eedadeed iyo habaryarteed waa lamid weeyaan ayadana line ba ayada xirtay maarta meesha ay ka baxdo waa la fasaxaya waxa kamida afaraad hadaad afar qabtid
midda shanaadna waa kaa xiranta waqti bay kaaga xiranta mid hadday meesha ka baxdo mid kale waa soo geli kartaa shukaansi waa lagu ogol yahay waqti bay kaaga xiranta soo sax maaha waxaa kaa xiran islaan maarta ciidadeeda ku jirta ma shukaansan karaysid hadday ciidadaasi ciidda rajciyaa tahay iyo hadday ciidda baa'inaad tahay rajciya baa'ina waxaa ujeednaa nin baa haweeney wuxuu ku furay hal dalqow ku furay soo sax maaha saddexdii ciiddada ay ugu jirtaa inaad ka fasahaadid ninbay waa nin xaaskiis weeyaan inaad ka shukaansato lama ogola intay maarta ciidada ka dhammaanayso ninbay ciidadiisa ku jirtaa leanna waa soo ceshan karaa lacala allaha yuxdithu bacda dalika amra ayuu weli ku jiraa waxaa dhici karaya inay arrintu isbedesho reerkii la heshiiyo laakiin haddaa khadka soo geshid adugu mushkilaad keenaysaa maarta ciddadiiba ku jirtaa waqti oo maartay lama ogola haweeney marka cidda ku jirta oo aan ka dhammaan waqtigeedii inaad shukaansato lama ogola hadday ciddadu baa'ina tahay oo ninkaani saddexdiiba ku furay saaxiibkaani saddexdiiba ku furay waaba uga dhammaatay soo maaha ama waaba la oofsaday islaanti waaba laga dhintay dhammaanteed waxa weeyaan islaantii laga dhintayna waxa weeyaan waxay sugaysaa ilaa markay xiddada qaadayso ama isbasaasayso ama ay asayda qaadayso intaas kaliyay sugaysaa shareecadu marka waxay ogolaatay middan oo laga dhintay ama midda baa'inada ah waxaa lagu ogolaaday laba midkood inaad sarbeeb u sheegto hadal aan caddayn aad u sheegtid maartay waa u sarbeebi karaysaa wallahi adigoo kale dhulka dhici maysa hadaad tiraahdo mushkilo ma laha soo sax maaha waa sarbeebtaas oo kale waa la ogol yahay waxaa kaloo la ogol yahay wixii aad kaarta iyo maaragtay qalbigaaga galana waa la ogol yahay ma garanaysaa oo aad tiraahdo kollaytoba ma waa sugayaa oo ha dhammayso oo maskaxdaada iyo kaartadaada iyo maskaxdaada gasha baleenkaaga waa lagu ogol yahay laakiin tasriix lama ogola si cad inaad ugu sheegtid ilaah subxaanahu wa tacaala qur-aanka waa ku diiday falaa junaaxa calaykum fima caradtum bihi min khidbati الnisa aw aknantum fi anfusikum calima allahu anakum satadkurunahun walakin la tuwaaciduuhuna sira ila an taquluu qawla macruufa laakiin haddaad ballan siido oo aniga ku guursanaya tiraahdo meeshii laga yaabayay haweentu saddexdii maarta ciidada ay sugi lahayd ama saddexda caado ku dhici lahayd ama saddex bilood ay sugan lahayd inay soo yaraysaaba dhici karaysa maarta ay dedejiso waxaa laga baqayaa marka inay dedejisaa laga baqayaa marka saa darteeda wax go'aan ah waa inaysan haysanin weeyaan waa midii bannaan iska ma garanaysaa waxaan kaloo la ogolayn oo shareecada islaamka mamnuuca haween la qabo inaad shukaansatid weeyaan ayaa ma la ogola ma shukaansan karaysid maxaa yeelay haween la qabaahi walmuxsanaatu min annisaa ayay ku jiraan waa haween ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu talagal in la ixtiraamo lala hadlin guur laguma soo qaadi karayo lalama sheekaysan karayo lama oran karayo wartii alla hadday timaado ninku ku furo aniga maartay soo wac telefoonka qaado lama ogola haweenin qaba ma garanaysaa lama shukaansado waxa weyn waa xaaraan ninkii shukaansada haween la qabo ama maartay jacayl iyo waxyaalo lamida u sheegaahi oo yiraahdo marniyow kani nin maahane doqon weeyaane wala rag fiican baan ku hayaa sax maaha kani iyo waxa lamida erayadaas oo kale ninkaas waa ibliis weeyaan ibliis baa reeraha burburiya waxa weyn waa saaxir alladhi yufarriqu bayna almar'i wa zawjihi saaxirka quraanka ilaahay ku sheegay reer isqaba inuu burburiyo rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa lacanaday calayhi salaatu wasalaam laysa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha wa rasuulku ila calayhi salaatu wasalaam inagama tirsana ummadda islaamka haddaynu nahay ninkii haween la qabo ku dira ninkii qaba wa rasuulku ila calayhi salaatu wasalaam ka fasahaadiya ee shukaansada ee la hadla waxa weeyaan arrintaasi waa xaaraan weeyaan shareecada islaamka marka haweenay la qabo ciday doonto qabto looguma talagelin inaad maaragtay shukaansato xataa culimadu waxay yiraahdeen qaaliga fasakha ama qaaliga garteeda gala inuu guursado lama ogola maar shareecada maxaa yeelay layn baa far baa ku fiiqan soo sax ma shubhaadi ma karays ninkan waxa weeyaa islaanta ka furay waa ka furtay baa la oran karaya hadda watan mushkila ka dhacay karaysa qaaliga xukumay lama ogola marka shareecada islaamka haween la qabo waxa weeyaan lama ogola erayada waa inay nin ajnabi islaahda ayda laftigeedu nin kale qalbigeeda inay raacido ma garanaysaa nin kale damacdo waa jariimo iyo dambi aad foolxun weeyaan shareecada islaamku aysan ogolayn haweenayda kale aan la ogolayn inaad maaragtay ashukaansatid waa haweentii qof muslima nin saaxiibka muslima iyo ayada maaragtay wada sheekaysi dhaba ay ka dhaxeeyaan oo aadna og tahay arrintaas maartay laa yakhdub ahadukum على خطبة أخيه ورسولك عليه الصلاة والسلام
haweentu hadday nin maaratay u doonan tahay ama nin u shukaansanayo ilaa ay ka diido maaratay ninkii hore adiga lama ogola inaad soo dhex gashido haweenta ninka aad ka qaadid inaad ka dhacdid lama ogola soo sax maaha madaahibuna waxay isku khilaafeen hadduu ka dhaco oo ka saaleeyo markii hore ma oo guursado ma ansaxa guurkaas ma ansaxayo ayaa khilaaf ka jira laakiin jamhuurta ahlu cilmi waxay leeyihiin guurku waa ansaxaya marka maalikiyada laga reebo waxa weeyaan laakiin waa dambi xun weeyaan nabigana calayhi salaam waa xarimay sidoo kale gabadha laftigeeda hadday og tahay gabadhaan inay maartay doonayaan isguursadaan oo ay isku fiican yihiin weli go'aankii maganaasa aan la qaadan oo gabadh amaaghay adigana inaad ka dul shukaansato laguma ogola marta sidoo kale allahumma waxaa ninka la yidhaahdaa hadduu labadooda isla guursanaya markaasa loo ogolyahay soo sax maaha asaga labadoodaba hadduu isku darayo laanna waa suurtagal weeyaan dumarka laba inuu isla guursado markaas ayib masaladaasi waxaan ka hadlaynaa masale shareecada islaamkaan ka hadlaynaa laakiin shareecada reer galbeedka hadda ka hadli maayo hala ogaado yaan dhihin maarta wadaadkii laba naagood oo isla guursaday buu sheegayaaho qaanuunka reer galbeedku wuxuu ogol yahay hal haweenay ma garanaysaa laakiin waxaan ka hadlayaa waa shareecada islaamka ma ahan shareecada iyo ama qaanuunka reer galbeedka waxyaalo fara badan buu uga duwan yahay waxuu qabaa maaragtay Scandinavianka qaanuunkooda wuxuu qabaa wiilku walaashiisa inuu guursan karo ayuu qabaa maarta waxa la yiraahdaa half baroor inay isguursan karaan hadday maaragtay hay kala yihiin la hooyo iyo aabbe isku yihiin ama aabbe iyo hooyo isku yihiin kaliya waxa weeyaan muhiim waa isguursan karaan buu qaanuunku qabaa laakiin leen istiralsaha ayay weydiisanayaan qaanuunkoodu marka anaga diinta islaamku laba walaalo ah shareecada isma guursan karayaan soo sax maaha waa mas'ala aad u xun weeyaan anaga marka loo fiiriyo marka ha u qaadanin taadii reer galbeedka inaan sharaxayo waxaan sharaxayaa maarta diinta islaamka oo ilaahay soo dejiyey oo akhlaaqadeeda leh oo dhaqankeeda leh oo ma garanaysa xadaaradeeda leh oo ma garanaysa taas baan sharaxayaa marka yaan la isfahmi weynin waa gartay soo sax maaha waxaan idhi lama ogola islaan la nin u doonan oo aad og tahay inaad maaragtay ka dul doontid lama ogola ilaa asaga uu laynka ka baxayo gabadhuna waa sidoo kale weeyaan oo arrintaa shareecada islaamku waxay ilaalinaysaa dadka muslimiinta ah inay maaragtay xalka u dhaxeeya iyo walaaltinimadu inaysan meesha ka bixinin ayaa shareecada islaamku ayay aad iyo aad ugu dadaalaysaa sidaa darteeda ayay arrintaasi ay muhiim ay u siiday daraaddeed ma garanaysaa haddii aan masaladaas khitaabadu waxaa fiican oo tala idinku siinayaa ninkii gabar doona inuu qariyo ousan sheeginin ilaa maaragtay guurku marka uu dhacayo mooyaane sababtoo keenaysaahi horta waxa weeye sida nusuusta ku soo aroortay istaciinuu biqadaa'i xawaa'ijikum bilkitmaan waxaa dhici karaysa markaad dan leedahay danta inaad maaragtay qarsatid baa ku fiican sidaadaba markaad waxyaalaha aad qabanayso dan aad leedahay weyn labo waxaa dhici karaysa haweenta haddii aad sheegtid intaad maaragtay xiriirkeeda ka dhaxeeya saan hadda ka hadlayno inay laftooda dhowr geyn maaragtay soo aruurso kana ballayn kana layn ay isu keento ay maaragtay ay isu baandhayso isdheeca dhigto balkay kala bixiyaan 5 iyo 6 isu keento dhici karaysa marka masaladu waa shay muhiim ah haddii gabar aad doontay noocaas aad doontay wili gabarba shareecada islaamku wax ay ku waajibinayso ma jirto saacada rabaad ka bixi karaysa soo sax maaha yani doonitaanku iyo shukaansigu balan ma ahan waajib waxa weeyaan waa kaliya waa fashlook iyo fikrad aad keenteen weeyaan haddii uu doonayo wiilku arko muddo wax ku soo dhacaan oo yiraahdo wallahi waxa ay muuqatay inaan guursan baa ay muuqatay waxa ku filan kaliya inuu sheego waan ka baxalayka soo sax maaha ayaduna hadday wax ku soo dhacaan sidoo kale waa u sheegi karaysaa waqtigaana diyaar uma aha ama waxyaalo cusub ay ogaatay information cusub ku soo kordhay ama asaga sidoo kale waxba ku soo kordhay shareecada islaamku way ka laaban karayaan lana waa isku xirra waa on doonitaan kaliya weeyaan fikrad kaliya weeyaan wax ka dhalanaya arrintaasi ma jirto oo shareecada islaamka ka dhalanaysa walidaalika ka digtoonow ila guurka shaxda ka yimaado inaad maaragtay kaligii noqotiin inaad masawiro isla gashiin inaad magaalada gaariga ku qaadid inaad tiraahdo waa gabar ii doonan waxaasi sax ma aha shareecada bari waxa dhici karaya masawiradaasi iyo Facebook iyo la isugu soo darayo iyo inay mushkilad abuurtaa dhici karto wayna abuurtaa xaqiiqad saan ognahay wax baan bay abuurtaa marka hal laga digtoonaado masaladaas gabadha hal la fiiriyo hal la arko waxaan u leenahay kuma filla masawirkeeda
inaad aragtid kuma filla maarta bal laguma ogola masuura isu diratiin adinkoon isguursanin ka hor wixii dusha sare ah markaad aragtid oo aad ku qanacdid waxaa ku haraya wax la yiraahdo khilqiga waxna waa khuluq midna waxna waa khalq nabigu fiiriya markuu leeyahay alayhi salaatu wasalaam ama eega laba wado weeyaan waxaan ka hadlay mid ah xaqi jirka iyo laakiin mid ka muhiimsan baa soo hartay oo ahayd xagga akhlaaqda islaamta akhlaaqdeeda gabadha doonaysa wiilkana sidoo kale weeyaan waana ka muhiimsanta waxa loo baahan yahay kow dhowr arrimood baan kugu la talinayaa waqtiga waa soo gunaanad talada koowaad wiil iyo gabarba haddaad wax shukaansanaysiin ama guura dhisaydiin waxaad ku dadaashaa horta kow qofkaad doonaysid waa inuusan noqonin secular calmaani waa inuusan noqon khuraafi waa inuusan noqon islaam ma garanaysaa rabbigeed aan aqoon waa inaysan noqon waa gara wiilna maanta rabbigiisa aan aqoon waa inuusan noqon haddii aad jeclaato laakiin naftu kaa dhaadhiciso waa kuu toosi doona waxaad arkaysaa gabar ku oranaysa anaa toosisan doona talow yaa la toosin doonaa su-aasha meesha taalla weya waa hadalkaasi hadal reality ama waxaa dhici kara adiga in lagu toosiyo adiga in lagu jiito waan u badanta ragguna iskuma hadlayn karaan hooyo xun dhul walba lama beerto dhulkaad beeranayso inuu carrasan yahay waa dhul fiican inuu yahay waxaad doonaysaa soomaalidu siday yidhaahdeen ilmahaagu hiilo waxay kaga baahan yihiin hooyadiis markaad doonaysid meel kasta maaragtay lama dhigto dhabarka intay ku jiri lahaayeen dhulka hal yaaleen sax ma ahan hadal sax ma ah waa inaad maaragtay meesha ilmaha ay ka imaanayaan iyo intay meesha laga beerayo qofku waa inuu aad iyo aad uga fekeraa walidaalika rasuulkanaga calayhi salaatu wasalaam marka dusha sare iyo quruxda iyo jamaalku alla ku sii laga reebo ayaa wuxuu nabigeenu faray calayhi salaatu wasalaam rag iyo dumarba inuu maaragtay laga eego xagga qofkaani caqiidadiisa diintiisa iyo dhaqankiisa oo nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam fadfar bidaat ad-diin taribad yadak waxaad ku guulaysaa gabar diin leh diinta hadda loo jeedaa meeshani waa diinta la xiriirta dhaqanka guriga lambar 1 ayda imaanaysa caqiidadeedu waa sax guriga ma tahay hooyo ilma dhaqi karaysa ma tahay hooyo ilma tarbiyaysa ma tahay iyadu mid tarbiyaysan akhlaaqdii ma leedahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam asagoo arintaasi tilmaamayo gunaanada nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri liyattakhidha ahadukum zawjatan salihah tu'iinuhu ala amri al-aakhirah qofkiin ha guursado oo ha samaysto haweenay wanaagsan oo arinta aakhiro uu kaalmeynaysa nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam wana tahaween aadan yani waqti go'an ma aha wax rabtina waa socotiin noloshiinu nolol sax noqoto waxa doonaysiin inaad ka gudubtiin adduunyada adinkooda haysta aakhiro u gudubtiin xaaskaaga aakhiro ay noqoto ayaduna ninkan aad guursanaysa wiilkaani odagaaga aakhiro inuu noqdo ayaa doonaysiin adduunyada la dhaafo ma garanaysaa marka kaartadu inaysan ku xiraan beriyahan yarka inaysan ku xiraan weeyaan waa mustaqbalka iyo framtiidka ay waqtiga dhan ma garanaysa laakiin hadday adduunyadii mushkilad tahay oo labadii qofoodii aan laga fiirinin aakhirada dhinaceedii diintii wax soo soconaya ma garanaysa ma noqonaya horo soconaya ma noqonaysa saa darteeda nabigu haween uu kaalmaysan ninku guursado arrinkeeda aakhira ayuu yiri calayhi salaatu wasalaam markaasuu rasuulku wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri qiyaasta soo sheegaya haweenta saalixada ah wanaagsan oo leeyahay hal la guursado nabigu calayhi salaatu wasalaam ahadiisa faraha badan ku soo aroortay u doorta maaragtay meeshaad ka guursanaysiin ka fekera nabigu uu yiri calayhi salaatu wasalaam waxaad beeranaysiin ka fiiri iska eega اختاروا لنضافكم يعني meeshaad wax ka beeraysiin iska fiiriya nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam dhamaantu wuxuu ku soo kooba dhowr arrimood ay tahay muhiim inay xagga diinta waa labo nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam in nadarta ilayha sarratka markaad fiirisid eegtid damootid waa inay ku farxad gelin karaysaa in amartaha adaacatka haddii aad amartidid waa inay tahay hooyo dhega fudud baa garanaysa wax maqlaynaysa ogol inay dhegaysato laakiin hadday dhega adag tahay laftigeeda mushkilad weeyaan saalixnimadii baa meesha ka baxaysa waxa kaloo la doonayaa hooyadu inay tahay nabiguna wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam in qibta anha hadaad ka maqnaatid waa inaad guriga ku aaminaysaa xafidat nafsaha wa malak nafteedana waa inay ilaalisaa xoolahana waa inay ilaalisaa marta waa inay qof maartay guriga ku dadaalaya laakiin haday waxay rabto maartay markaad maqan tahay xoolaha ku ciyaarto oo ay tahay maartay canaana waxa isheedo ku dhacdo soo aruuri soo saxma
iska xaalifiso wax kasta nafteedu aysan ilaalin waxay ka mid tahay waxyaalaha la aad looga fikiro nabigana calayhi salaatu wasalaam sheegay dhinaca kale waxaa laga yaabaa inaan gabdhaha kaliya u badiyo hadalkii xagga wiilasha haddaan u gudbo wiilasha waxa weeyaan baaritaan xoog lay u baahan yihiin soo sax maaha faxsi ilaa faxsi lagu sameeyo in la baaro weliba waqtigaani waqti aad khatar ah weeyaan ballantu lagama soo baxo lama ilaaliyo maarta wax la isku og yahay saa darteeda waqti kastaba xukunkiisa uu leeyahay iyo duruuftiisa wiilasha waa in si fiican loo baaraa marta oo la soo ogaadaa xaqiiqada waana sheegay weligaa soo baaro nabigu laba arrimood baa laga soo hubiyay wuri idaa jaakum man tardawna diinahu wa khuluquhu rasuulku alayhi salatu wasalam hadduu idin yimaado qofaad raalli ka tihiin diintiisa laakiin maxaa diinta kaliya loo oran waayey nabigu muxuu ku daray alayhi salatu wasalam akhlaaq ba ku daray soo ma laana guriga waxa lagu dhisaa waa akhlaaq weeyaan gurigan aabbu hadduusan akhlaaq lahayn ausan jilicsanayn oo reerkiisa u dabacsanayn ausan u naxariisanayn ausan magaranaysa la walaacayn ausan mas'uuliyadda qaadayn ausan diyaar u ahayn mas'uuliyadda Allah saaray ar-rijaalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim xoolihiisa u bixinaya magaranaysa aabanimo ku ilaalinaya gurigaasi hadduusan munaasabka aysan ahayn akhlaaqdii laga waayo waxa weeyaan aabba noqon maayo wiilkii fiican noqon maayo akhlaaqdu waa shayga ugu muhiimsan guriga lagu dhaqo weeyaan nolosha ku socoto reer baa noolaanaya reerkaas xiriirka isaga ka dhaxaynaya waa akhlaaqda weeyaan waxaad ogtihiin insha Allah muxaadaro kale aan ku qaadan doonaa yani labada qofood diintoodu asaas guriga iyo carruurka iyo ubadka soo socda ayaga asal u ah waxyaalaha ugu badan oo dhibaatada ka dhacda waa labada waalid mid kamid ah oo aan Allah ka baqayn subhanahu wa ta'ala xaqiiqatan waliha dhamaantood markaad u fiirsid sadarta shariicada islaamku ayay naga xarimtay haween gaala inaan guursano gaash waxaan u jeedaa mushrikadan diin lahayn shariicada islaamku way naga xarimtay maarta wala amatun mu'minatun khayrun min mushrikatin walaw ajabatkum adoon jeeriyadaha ka khayr badan baa leeyahay markaad mushrikad guursan leed haba ku caajib galay quruxdeeda maxaa yeelay ulaayka yad'uuna ila an-naar wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfira hooyadaani carruurta iyo reerka dhan xagga naar bay u kaxaynaysaa waad ogtihiin nabiyullaahi nuux alayhi salaam waxa ka qabsaday asagoo nabi ilaahi ah markaan tilmaamin doona muxaadaro kale aftahan aha haddana waxa weeyaan wiilkiisii way ka jiidatay way ka saadacaylaysa marta soo sax maaha asoo waxa weeyaan nabiyullaahi nuux oo la garanayo dacwadiisa iyo wax gaar cid kale maxaad malaynaysaa nin caalim aha oo la oran jiray Imraan ibn Hittaan taabici weeyaan waa shuyuukhdi imaam al-Bukhari oo kamid yahay soo sax maaha shuyuukhdi imaam al-Bukhari oo kamid yahay Aisha wax ka wariya Abdullah ibn Abbas oo ka wariya Abi Musa al-Ash'ari oo ka wariya caalim weyn buu ahaa haween oo fikrad xun aaminsaneed oo khaarijiyad ahayd ayuu yaraha shukaansaday haweentiiba waa ka helay waxa lagu yiri waa guursanayaa haweentan warka joog baa la yiri warniyow ka joog haweentan waxa weeyaan fikrada xun bay aaminsanta markaasuu urmayaanu nin caalim aan ahayo ayadan soo dabala huraayadaan bas soo celinaya bus soo sax ma ninkii maaratay haweentii muddo markuu qabay asaga la jiit wuxuu noqday khawaarij mid ugu xun buu noqday maarta sababa gabayal fara badan buu leeyahay Ali ibn Abi Talib markii la dilay asagoo ku diganaya oo maaratay aad iyo aad ugu faraxsan ayaa maaratay gabay dheer buu leeyahay oo la yaqaano oo tiriyay culimada islaamkuna maaratay ay ridiyeen maarta ninka la Abdurrahman ibn Muljim oo Ali dilay ayuu amaanayay buu leeyahay ya darbatan min taqiyin ma arada biha illa liyablugha min dhil arsh ridwana وإني لا أذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا قبل دار بوليه يكو أمانة يوليه نينك الأورانجري عبد الله بن ملجم محمد ابن ملجم بوران لها ضربضوا كل دفتي قراعوا علي كل دفتي مدحوا كل دفتي وحويان وقراع إلهي أكتيسة أو دوانشو يا ميزان وقت يدلين وقل سبحانه وتعالى أوليه وحن أم لينا يا نينكاس dadka alla agtiisa ninka ugu dhowinaya waa ninka kharijiga soo ma ninka caalamka soo bedel yaa jiitay haweentaas maartay ayaa jiidatay waa marka haweentu waa khatar weeyaan sidoo kale hadii haweentu nooca noqoto odaguna ka sii daran yahay markaas la al mar'u ala diini khalili
marka waxa loo baahan yahay qofka aad guursanays ogaa la diin baad noqonaysaa imisaan garanaya gabdho wadaada ah ha loo guuriyay ragaan diin lahayn oo diin la'aan ku soo baxeen cagsiguna waa dhacay marka mid heesta hadaad ka hesho iyo mid tumata hadaad ka hesho iyo mid qayila hadaad ka hesho adoo la qayilaysa barkat shahan baad u soo karin soo sax ma oo ku qayilo qiiqiisoon baa kugu bixin waxa isla noqonaysa isla meel baad maraysin ugu dambeynta almaru ala diini khaliili xaqiiqa jirta waan la inkiri kalaynin weeyaan shariicada islaamkuna noocaas bay u diiday waxaa jira marka yahuud iyo nasaara inay la guursado rag guursadaan waa la baneeyay shariicada laakiin culimada badan waxay leeyihiin waa markay muslimiinta ku dhex nool yihiin aysan ayagu awood lahayn laakiin markay awood leeyihiin daruurtii baa khatar galays imisaan arkay rag dhibaatada qabsatay waxaan nin Tunis ka yimid islaan Suuriya ku ayuu guursaday islaantii marka bariga hore waa la isku fiicnay almuhiim wiil bay dhashay wiilkii markay dhashay waa ka xeeyay wiilka masaajidka damcayno la yimaado waa la isku xumaaday waxay tiri okay waa loo qaybiyay ilmihi waqti baa haystaa waqti baa ayaduna haysataa marka waxa uu sameeyay ayaduna axadda kaniisada geeyda soo sax maaha wuxuu ku wiilka kaniisada maxaa u geynaysaa adigu soo masaajidka ma geeyid bay tiri soo sax maaha anaguna kaniisadan geeyda marka asaguna jumcaha masaajidku keena ayaduna kaniisada waxay geysaa axadda kaniisada geeyda okay bariyaha ay haysato qaansiir bay ka soo dhashidaa ay ka soo ku soo waraabisaa asaguna marka uu yiraahdo wuxuu ra hilib xalaal wuxuu ku yiri ana gar qaaday wuxuu ku tiri wuxuu ku yiri wixii iga siidaa cunugayga xaaraan iga siidaa uu qaansiir ay siidaa markaasay tiri asaguba xalaal u siistaa adu marka xalaasha siisato ana kayga qaansiiran soo siisaa ay tiri marka ana bisteemayo bas ka yora ana iska xaraxakuma markaan waxaan sameeynayo marka waa mushkila soo maahan ninkaasi ilmahaas xagee baad u malaynaysaa xag ku dambeynaya laana meel kharaad ah ayuu marka hore ayuu ku beertay waynuusan ka fikirin arrintaas masalada kale oo rabo inaan tilmaamo waxay tahay oo laga baahan yahay in laga fiiriyo qofku marka uu gabar doonayo oo doonayo inuu ka fikiro aad iyo aad uga fikiro inuu ilaaliyo xiriirka ka dhaxeeya reerka gabadhu ka dhalatay asaga shariicada islaamku waxay ugu tala gashay dadka muslimiinta ah inta xididaan inay xiriir oo dhaxmar waja'ala baynakum nasaban wa sihran soo ilaa ma dhihin musaaharanimadu waxa weeyaan dadka isku dhax gala waa dadku way isdhalaan waa kala dhashaan way isguursadaan waa la kala guursadaa waa la xididaa muslimiintu walaalnimada kamid dadka lagu walaaleeyo nabigeena calayhi salaatu wasalaam reer fara badan buu ka guursaday soo reeraas dhamaanta u soo jiido calayhi salaatu wasalaam soo keeno ayaa oo ilaaliyo calayhi salaatu wasalaam maadaama nooca ay tahay yaysan dhicin waxyaalaha ay ku fekeraan daayarta qayb kamida gabadhan haddaan guursado ama wiilkan gabadhan guursado waa inaan noqonaa labadanada kaliya reerkii hala gooyo hooyo ma taqaan hooyada ma salaami kartid abtiga telefoonku ma soo diri karo reerkaaga waa inaad gooysaa wiilkana sidoo kale la yiraahdaa masala sharciga waafaqsan ma rixim iyo qaraabo iyo ma garanaysaa ayaa meeshii taala waa in la ilaaliyaa shariicada islaamka waa in la ilaaliyaa siday ay tahay sahrinimadii xididnimada waa in la ilaaliyaa labo sidoo kale shariicada islaamku waxay xarimtay wiilkii gabar munaasab u noqda xaq diineed iyo akhlaaq iyo gabadhii u noqota wiilkan munaasab in la isu diido shariicada islaamka waa xaaraan weeyaan nabigeena calayhi salaatu wasalaam gabadha la guurinayo lama qasbi karayo waa inuu xataa laga idan weydiiyaa buu rasuulku yiri calayhi salaatu aabaheed gabadhu hadday gabartan la guursan waa inuu idan weydiiyaa fi sahih muslim bay ku taala marka waa inaan caadooyinkani haddii gabar la soo doono nin wanaagsan u yimaado laga fiiriyo meel laga eegi jiray waa inaan lagu xirinin qabiilkayga maaha ma wada degno xoolaha nagumada daaqaan nambarada sheeg aan tiriye xagee baa ka soo jeeda masaladaasi waa cudur iyo doqonnimo weeyaan wilaayada qofka loo dhiibana meeshay ka baxaysaa shariicada islaamkuna wada kale banaysa haddii mas'uuliyad lagu dhiibay aad ku ciyaarto sideeda aad u isticmaali waysa danahaga ku fidsad inaad leedahay gabadhan waa shaqaysa mushaarkeedan doonayaa inaan soo dhaco aniga hadday laakiin nin kale iga guursato mushaarkii asaga u aadaya ama marka la siinayo loo shardiyo la yiraahdo warniyahow mushaarka waa inaad soo celisaa gabadha mushaarkeeda waa keentaa
ama la yiraahdo guursato bilkii baa maasha galaya ilaahay waxaan weydiisanayaa subxaanahu wa tacaala tawfiiqda ilaahay inuu waafajiyo maarata khayrka inuu hanuuniyo kullu talooyinka qayb kamida weeyaan talooyinkaasi waana shay shariicada islaamka hadda iskhilaaftiin socotiin waxaana la amray diinta u laabta ina magaranta wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila allahi wa rasuul ilaahay baa subxaanahu wa tacaala tawfiiqda iskale wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sallam